kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij wareedka Soomaali Weyn Production qodobada aad ku daawan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dil ilmeeyay meedka boqoradii Ingiriiska oo aaskeedu ka qayb galay sawirro laga soo qaaday oo hadalhay weyn ka abuuray baraha ay ku kulanto bulshada iyo bulshada Soomaaliyeed oo siyaabooyin kala duwan kaga hadlay warar arinta ku aadan ayaan idiin haynaa qodobada kale tan waxaa ka mid noqon doona madax Afrikaan ah oo lagu bahdilay munaasabada aaska boqoradii Ingiriiska iyo ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan idin la wadaagi doonaa wararka ku aadan qaabka ay u dhacday aaska boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth II iyo madaxweynaha Turkiga oo iska diiday inuu ka qayb galo aaska Queen Elizabeth hal sabab oo ka dhiftay in Erdogan uu diido iyo waxa qabsaday madaxda Afrikaanka ah ee ka qayb galay munaasabada aaska boqoradii Ingiriiska ayaa barnaamij wareedkeena kaga boga doontaan wax walba oo aad kaga baahan tahay sida munaasabadaasi ay u dhacday ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale oo aad barnaamij wareedkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doono taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo safar qarsoodi ah ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya iyo xog la yaab leh oo laga helay safarka Mahad Maxamed Salaad xilli xiriirka dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya uusan wanaagsaneyn waxaan idiin soo gudbin doonaa safarka qarsoodiga ah oo Mahad Salaad uu ku tagay Itoobiya wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkeena kalena waxaa ka mid noqon doona taliyaha militariga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage oo guul la yaab leh ka soo hooyay dagaalada ka socanayo gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya haddaba General Odawa oo si weyn loogu bogaadiyay guusha uu ka soo hooyay dagaalada ka dhana ururka Al-Shabaab xilli warqadiisa xilka qaadista ay bannaanka ee taalo xogta dagaalada ka socanayo gobolada Hiiraan Galgaduud iyo Mudug ee Soomaaliya ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena ee u diyaar garooba daawadayaal faafahinta qodobada aad daawateen haddii aan ku bilaabo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa ka mid noqday madax heer caalami ah oo ka qayb galay munaasabada aaska boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth II munaasabadan oo si weyn loo soo qaban qaabiyay ayaa ka dhacday magaalada London ee dalka Ingiriiska iyadoo xubnaha ka qayb galana ay ka mid yihiin madax Afrikaan ah arinta ugu hadaleynta badan ayaa waxay ahayd sawir laga soo qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqda mid uu qashuuc ka muuqdo iyaga oo dadka dhaliilsan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku sifeynayeen in madaxweynuhu uu ku dil ilmeeyay meedka boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth II waa sawirkii labaad oo laga soo qaaday madaxweynaha oo abuura hadalhayn bulsho hore waxaa jirtay fasal xileedkiisii hore xilli uu ka qayb galayay munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya oo lagu aasayay askar ka mid ah kuwii ku geeriyooday weeraray Al-Shabaab ee la eegteen ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya laga soo qabtay sawir u muuqdo isaga oo u sujuudayo marka la eego askarta geeriyootay kaasi oo si weyn loogu dhaliili jiray muddaxileedkiisii hore hase yeeshee sawirka maanta laga soo qabtay ayaa muujinayo madaxweynaha oo qushuuc ka muuqdo isla markaasina dadka qaar ay ku sifeeyeen in madaxweynuhu uu ilmeynayo isla munaasabadaasi waxaa si weyn loogu bahdilay madaxda Afrikaanka ah ee ka qayb galay munaasabada aaska boqoradii Ingiriiska iyadoo madaxda qaarkoodna basas lagu raray halka kuwa kalena si weyn loo sharfay arinta ugu hadaleynta badan ayaa waxay tahay in madaxdii Afrikaanka ahayd ee ka qayb galay munaasabada aaska boqoradii Ingiriiska loo diiday ilaaladooda gaarka ah sidoo kale tan la amray inaysan diyaaradahooda gaarka ah aysan ku soo bixi karin taasi bedelkeedana xilliga ay ka qayb galayeen waxa la amray diyaaradaha rakaab ah inay soo raacaan si loo ilaaliyo saxmadda maadaama munaasabada madax kala duwan munaasabadu ay ka soo qayb galayso waxa munaasabada si weyn loogaga ciseeyay dalalka reer galbeedka halka dalalka Afrikaanta ah iyo dalalka Carabtuba si weyn loogu bahdilay waxaana la isugu geeyay bas oo ay raaceen markii ay feelalka u galayeen in ay arkaan halka uu yaalo meedka boqoradii Ingiriiska ee geeriyootay Queen Elizabeth II ayaa ugu dambeyn maanta la aasay waxyaabaha la calaamadeeyana arinta Soomaaliya qoysayso ee hadalhaynta ka abuurtay waxaa ka mid ah sawirka laga soo qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud halka dunida oo idilna ay hadaleyso sida loo bahdilay madaxda Afrikaanka ee la bahdilay ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya inkastoo madaxweynuhu uu kala siman yahay madaxda kale ee Afrikaanka haddana
wararku waxay sheegayaan in madaxweynuhu boos uusan ka helin halka loogu talagalay maamuuska madaxda kala duwan ee lagu casuumay munaasabadda aaska boqoradda Ingiriiska. arrintan ayaa abuurtay hadalhayn bulsho oo guud ahaan caalamka marka loo eego qaabka bahadilka ay ula kulmeen madaxda dalalka Carabta iyo kuwa Afrikaanka ah. hase yeeshee waxaa arrintaas iska diiday madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa si cad u diiday inuu ka qayb galo aaska boqoradii Ingiriiska isaga oo ogaaday in markaasi ilaalada gaarka ah laga reebayo sidoo kale tan basas lagu rarayo sida rakaab oo kale. talaabada oo uu si weyn kaga carooday madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. hase yeeshee madaxda kale ee wadamada Afrikaanka iyo Carabta iyo wadamo ay u badan yihiin kuwa muslimiin ah ayaa iyagu intooda ugu badan ee lagu bahdilay munaasabadii ka dhacday magaalada London ee dalka Ingiriiska. Rajab Tayyip Erdogan sababtu ku diiday inuu ka qayb galo munaasabadda aaska Queen Elizabeth labaad waxaa lagu sheegay inay tahay in uu diidan yahay bahdilka u soo hooyanayo dalkiisa haddii laga reebayo ilaaladiisa gaarka ah iyo weliba haddii isaga gaari rakaab la saarayo, taasi oo u muuqata mid bahdil ku ah qarannimada dalka Turkiga. si kastaba ha noqotee dowladda Turkiga ayaa ka mid ah dowladaha muslimiinta ee lagu ixtiraamo qabkooda, isaga oo madaxweynaha Turkigana uu iska diiday tallaabo lagu bahdili rabay qabka iyo qarannimada dalkaasi Turkiga. geesta kaleetana taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa la ogaaday in safar qarsoodi ah uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. wararka la helay ayaa sheegaya in safarka Mahad Salaad ay ku weeliyeen xubno ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. socdaalka qarsoodiga ah ee Mahad Salaad uu ku tagay magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu horudhac u yahay safar dhawaan uu halka ku tagi doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. wararka la helay ayaa sheegayo in Mahad Salaad uu u gogol xaarayo kulan weyn oo ay yeelan doonaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. kulankaas oo la filayo in dib loogu soo nooleeyo xiriirka sii dhimanayo ee dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. macluumaadada ayaa sheegayo diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka tirsan iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya in qaab qarsoodi ah ay kaga baxeen magaalada Muqdisho, isla markaasina xogtooda aan la wadaagin warbaahinta. Mahad Maxamed Salaad ayaa la filayaa in kulan uu la qaato saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya, iyadoo intaasi kadibna uu la kulmi doono diblomaasiyiin Itoobiyaan ah oo uu kala hadli doono kulan la filayo inuu dhex maro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali. wararka laga helay safarka Mahad Salaad ayaa tilmaamayo in intiisa ugu badan uu ku qotamo mid ugu gogol xaarayo safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Itoobiya. waayahay geesta kaleetana taliyaha militariga Soomaaliya General Odawayo Yuusuf Raage ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay dagaalada ka soconaya gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. taliyaha militariga Soomaaliya General Odawayo Yuusuf Raage ayaa ku faanay in gebi ahaanba ay baabi'iyeen oo ay cagta mariyeen saldhigyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya intooda ugu badan. waxaana taliyaha militariga Soomaaliya General Odawayo Yuusuf Raage uu sheegay inay dileen in ka badan 99 dagaalame oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. qaarkood ayuu sheegay in la gooracay, qaar kalena qaab arxandaro ah loo dilay. waxa uu tilmaamay in sidaasi ay sameeyeen ciidamada deegaanka ee Macuusley. General Odawayo ayaa bandhig wanaagsan soo bandhigay iyadoo warqadiisa xilka qaadistu ay banaanka taalo lana qorsheenayo in dhawaan xilka laga qaado General Odawayo Yuusuf Raage taliyaha militariga Soomaaliya. isaga oo xilka laga qaadayo ayaa haddana taliyuhu waxa uu wadaa abaalduul xoogan oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, kaasi oo lagaga xoreynayo gobolada ay muddo ku sugnaayeen dagaalyahanadaasi. Al-Shabaab ayaa hadda la kulmayo culaysyo xoogan iyagoo markii ugu horeysayna ay ka qeyla dhaamiyeen shacabka iyo dowladda isbiirsaday ee weerarka ku ah, waxaana muuqaal naadir ah soo duubay afhayeenka guud ee kooxda. gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo meerayaa barnaamij wareedka aad kala socoteen Soomaali Weyn Production tan iyo kulanti dambe nabadii warsan.